curtay waxaa iska lahaa allaha u naxariistay gabayaagii la oran jiray qamaan bulxan qamaan waa ogaadeen waa reer cabdulle oo waa reer xandulle nimanka la yidhaahdo bahamagan ayuu ahaa wuxuu ku qolan yahay hal caleere iyo axmed badaale iyo nimankii loo gebiyey ee qoblo loogu gebiyey markaa sidaas ayuu kusoo hiliyey qamaan haddaan ka idhaahdo eraya gaaban wuxuu ka tirsan yahay qoys maansadu ay sal iyo isirba ku leedahay oo waxaa kor uga weynaa ninkii gabayaaga weyn ahaa isna oo la oran jiray weerar bulxan oo gabayada jacaylka ah ee dareentaaba kale tirin jiray oo gabadhii la oran jiray mulaaxo ilaahay ku jaanjaamay ninka ayay walaalahaayeen oo kor uga weynaa qamaan marka gabayaa keliya ma ahayn nin wuxuu ahaa ka muuqda nabad iyo colaadba geyigii iyo wadankii uu ku noolaa oo xiriireed wuxuu ahaa xilligaas oo ahaa waktigii dee uu noolaa wuxuu ahaa nin daraawiishta kasoo horjeeda oo iyaga iyo sayidka qoyskooda waxay ku culloobeen arrintii la oran jiray kala kacee burdumi iyo gondagooye ayay ku culloobeen markaa halka ayuu daraawiishta col kale ahaa gabayo badan oo ugu jiray sayidka inkastoo markii dambe 1920 markii ay taleex iyo nugaal kasoo jabeen daraawiishtu oo xagga webi ay soo aadeen ay caro ogaadeen fadhiisteen qoraxay uu ka mid ahaa qamaan ogaadeenkii noqday daraawiishtu markaasna wuxuu tiriyey oo sayidku halka ayay sayidka isku arkeen sayidka ayaa gabay yidhi maalin maalmaha ka mida markaas wuxuu tiriyey gabay uu isaga ula jeedo oo iska caddaan oo soomaalida dhexdeeda hadda caan ku aho walla ina ragoo tale adduuntaada ulma aho isaga uu ula jeeday ayuu tiriyey qamaan maalinkaas wuuna ku badbaaday qamaan bulxan wuxuu kaga duwan yahay raggii kale ee gabyii ogaa xilligiisii waxaa la oran karaa waa gabayaagii murtida shaaca alxikma marka gabay kasta uu leeyahay waxaad ka heli kartaa murti ballaaran oo soomaaliduna aad bay ugu mahmahdaayo iyagoo aan aqoonin qalaan leeyahay ayay gabaygiisa hadalka ku quruxsadaan maalinta ay wada hadlayaan ama ay fagaar isugu yimaadaan waxaa ka mid ah iyadoo badan aan lasoo koobi karin adiga nin baa kula daydayay daalna kaa badan aan doonahayn inaad hashanaadaayina idkaaya dadkuna moodi duul wada socdaan wax u dahsoonayna dallana ma laha aakhira haddii loo kitaabtayo tii u kulahaa mar kale waa kii lahaa inta lacana iyo wiilkaa lala cabsoodaayo waxba calaacal kuma yaal haddii cays lagaa dhigo ee cadaabkii ma iibsado ninkan cadilkiis badin oo dagaalka marka uu kaga soo horjeeday mar kale waa kii lahaa wax cadaabka loo qora dhigaa culimo duug weyne isagoo cibaadoonahayo camal ka eedaaye isaguu ka naar mudanhayaa dhinaca soo gaari qamaan ninkaasu ahaayo waxaa la yidhi 1928 ayaa nin isla reerahooda ahayd uu dilay halkaas ku dhintay haddaba tixaan ugu jawaabayo cali salmaarke waa tix xoogaa cabasho ay ka muuqato oo uu leeyahay annaga odhayadu haddaad bulshatantiin gablana waa idin siinaa waana idin soo raa kumana hadallo omana gabayno dadka aanu wax siino marka gabay eer sheegad ah siga naftiisana uu ku leeyahay haddaad gobanimaad sheegatay hanti iyo hodantooyo ayaa sheegatay sidee ku dhacday wiil yaroo halaco kalaa intaad haddii aan lakuu ron yahay ayaana hayseen waad marti soorteen inaa haddana ka cabato labadaa hadal ayuu leeyahay laba isqaban kara cali salmaarke uma wuxuu yidhi qamaan bulxan halkaad cali salmaarkowna tiri waa hufya been halkaad cali salmaarkowna tiri waa hufiyo beene waxbaan heli karaa waadna tiri waadna hibataye haraanka iyo faanku waa hayad kala dheer halkaad cali salmaarkowna tiri waa hufiyo beene waxbaan heli karaa waadna tiri waana hibataye war haraanka iyo faanku waa hayad kala dheere isku helin bal qaad xaajada ka hadoodilo isku helin bal qaad xaajada ka hadoodilani gobannimo hadday hodan taho hiba lagu siiyey hamaxaad u tiri wiil martiya hilib intaad siisay haragtimida heshiga bariis buriya hasharka heryahadoodii lambarnida lagu hagoogayo hasha gawdaceediyo latiga kuruskahan waaye habkuu dhacay iyo gabaraan hegi laga goynin hasawa dheero weliba ibasha waayeele lixadan ambiyo sheeg lahayn horalla mooyaane iyo dadabta hooskale annaba gelinay haybkiinay ma jeerteen habnugulaanin maray hadalkii mudaayo
harti waxaan ku nahay ruux midaygiisdan moodaane idinka hayaysnimada qoray halac ogaadeene eegaama ikhlaasidaad halagu sarteenay waryaanaada horeeyaydu sow hadal afwaamo hawii qaban bulxan wax tahay